ولا صعدتها إن بنك فرانكلين وجوجدون العكتي والصومالي ودري impact intee la eg ama saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa Soomaalida degan gobolka Minnesota iyo Soomaalida degan Soomaaliya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ilyas aad baad u mahadsantahay. Runtii su'aal waqtigan aad ka xaadirka oo muhiim baad weydiisay. Adiga iyo daawadayaasha iyo akhristayaasha Muqdisho Times aad baad u mahadsantihiin. Saameynta ay ku leedahay xawaaladaha inay ay mataqaana shaqadooda hakad ku yimaado ama ayba shaqeyn kari waayaan lacag halkan laga qaaday loo geyn waayo Soomaaliya loo geyn waa mid la soo koobi karo runtii ma sababtoo ah dadka tabaalaysan ee Soomaaliya ku nool ee 20 sano iyo ka badan oo civil war ku jiray dawlad aan jirin cid kale oo taageeraysa aysan jirin marka laga reebo hay'adaha samafalka oo u gurmaday waxa kaliya ay ku nool yihiin dadka isaga ay ku socdaan runtii waa lacagaha yarka halkan marka aan ka eegno aad ka u tarayar balse iyaga marka ay u tagta lacag badan runtii u ah ayay ku noolayaan arrinta iyada haddii ay caqabad ku timaado inay fulin kari waayaan xawaaladii kaliya u marinayeen lacagaha ilaa waxaan ognahay bangiyo kama jiraan Soomaaliya institutionna kale oo mataqaana jooga oo halkan xaadir ku halkaana jooga oo gaarsiin kara ma jiraan waxa kaliya ee ka jira waxay ahaayeen xawaalado waay xawaaladana wax ku yimid mataqaana sidee dadkan maadaama aysan dawlad jirin say wax isku gaarsiin karaan system efficient oo ku bilowday waay aadna runtii ugu shaqeynaya dadka maadaama aysan qaab kale oo la mariyay aysan jirin sida daraadeed haddii ay ku timaado caqabad ama ay sameyn kari waayaan dhibaatadeeda wax la soo koobi kara ma family ba cid walba naga jooga dadka meelahan jooga waxa kaliya ku gaarsiinayna waa $100 iyo $200 halkan uga dirno $200 ilaahay ka soo waxa kaliya ku nool yihiin waayaan $200 haddii ay suura gali weydo in la gaarsiin waayo dadka saameynteedu wax la koobi kara ma dadkeena halkan jooga ama mataqaanayay halkan joogay dadka taakuleynayeen way nagu adagta in qaab kale lagu gaarsiiyay ay jiraan marka runtii saameyn aad u weyn weeyaan soo waxa ku yeelan kartaa saameyn aad u weyn oo isla faahna arrintaas waxa kale oo jira maadaama sharciyaqaan aad tahay bangigan hortiis waxa shaqada soo joojiyay bangiyo badan oo ay kamid yihiin Wells Fargo US Bank bangiyo badan oo lacagta diri jiray markii hore joojiyay arrintii cabsidan intay ka timid cabsidan bangiyada ay qabaan maxay tahay waa su'aal aad muhiim u ah marka aynu eegno waxaan ognahay 2001 qaraxii fooshxuma ka dhacay Mareykanka inay qaabka sharciyada wadankan ama waa gaar ahaan financially mataqaana sida isku gudbinaya ama dad ma aragtay argagixisa lacag lagu gaarsiin lahayn in aad loo adkeeyay sharciyadaas marka mataqaana ka wada duwan oo badan baa soo baxay midba midka ka dambeysana waxay ka dhigayeen mid aad u adag inay ay wadankan dhaqaale ka baxay ay gacanta u gasho dad mataqaana aan loogu talagalin argagixiso kale inay gaaraan fast forward waxaad soo gaadhaa mataqaana 2008kii waxaan ognahay inay al-shabaab oo ka dhaqdhaqaaqa Soomaaliya ay dawladdan Mareykanka designate gareeyaan inuu yahay urur argagixisa taasoo micnaheedu marka dhigayso wixii lacag ah ee ka baxa ama dhaqaale ee wadankan ka baxa haddii ay gacanta u galaan dadka aan loogu talagalin inay marka mataqaana saameynteedu aad u adag tahay both civil ahaan madani ahaan mataqaana ganaax u dhici karo dambi ahaanna loo dabageli karo marka sharciyadaas ay kala duwan muddo soo socday 2001 laga bilaabay iyo ka horba mataqaana ay kadib soo socday waxay sababeen marka in ay institutionadii lacagaha ama bangiyada oo kale inay mataqaana ka dhigaan lacagaha meelahaas oo kale wadamada aaday high risk oo kale inay ku noqoto oo markay yiraahdaan haddii ay dhacdo ama ogow mid kale waliba sharciga soo sameeyay ama ha ogaan knowledge xataa lafteeda meesha mararka qaarkood waxay leeyihiin xataa qofka ama hadduu ogaadan ogeynba saameynteeda lafteeda ku saameyn kara oo way dhibaatay u keeni kartaa marka bangiyadu laakiin waa inay waxay ahayd eegaan sida Soomaaliya oo kale unfortunately oo ka duwan wadamo badan oo kale oo dawladda ay ka jiraan sababtoo Soomaaliya wax dawladda ka jirto ma jiraan institutionno kale oo ka jira ma jiraan dadkii marka waxay isticmaalayaan xawaalado waxay isticmaalayaan xawaaladii marka waxay noqdeen inay laftooda ay yiraahdaan bangiyadii maadaama idinku laftiin aad lacag gaarsiinaysaan wadankaasayto ayna ku dhici karto inay ay gacantoodii galaan dad kale marka annaga idinka laftaan idin lama deal gareyn karaan arrinta ma fairba mise fair ma aha mataqaana waa wax cad oo dareemi karna waa sababtoo community ahaan wax anagu aan ognahay waxa waa institution runtii efficient ah oo ma aragtay si fudud ku gaarsiinaya qofkiina gaarsiinaya
laakiin Soomaaliya wax documentation oo ka jira ma jiraan وأصل قرني معناها إن أي كانت بنجيدة معناها عبسود أي كانت كوحة أرجع حسدا ومثلا لوشة وكل سومالي سدا على الشعب وكل لكن متى هي fair إن system استعمالان millions ضد أو معناها أو لو جرسيو العق أو معناها سكلة aysan kusoo saari karin noloshooda waxa kale oo la sheegay ARC oo kamida ururada qaxootiga taageero oo shaqo weyn ka wada Soomaaliya inay lacagtooda marsiin jireen Al Franklin oo hadda arintaas xataa qatar ay ku jirto macnaha markii system dad intaas leeg ay isticmaalayaan oo ay ku nool yihiin in laba qof ficilkood sida gabdhihii oo kale oo macnaha bangiga waxay ka dhigteen excuse gabdhihii Minnesota mataqaanaa lagu helay dambiga in laba qof ama saddex qof action ay suubiyeen oo kale oo loo ganaaxo Soomaalidii oo dhan dad badan farma kula taadeen runtii waa su'aal mataqaanaa lafteeda u baahan inaan waliba kala gogoyno oo aadna u ballaaran muhiimna ah runtii ma feerba way inoo muuqataa inaysan feer ahayn ma sharciba waa wax laga doodi karo waa sababtoo sharci ahaan maadaama sharciyada ay meesha yaalaan waxa weeye oo ah inay mataqaana oo arkaan bangiyada oo kale waxay ciyaarayaan safe oo ah maaragtay maxaan ku yiraahdaa anagu intay dhibaato noo keen lahayd noo dadkii habaabaan oo kale camal runtii marka dhinaca laga eegana fair ma ah dadka hasa ahaatee marka ay lacagaha gudbinayaan amaba markaan ka soo qaadano systemka waa system million Soomaali ay ka faa'iideysanayaan million Soomaali waa lacag dirta million Soomaali aan lacagtii way gaadhaan waxa marka dhacda milyanka systemkaas ay isticmaalaya qof iyo laba sida meel walba uga dhacaan maalin walba mataqaana meel walba uga dhacaan inuu mataqaana khalad dhici karo ama mataqaana dad ay ka faa'iideysan karaan dad dambiilayaal ama argagaxsiyaal sida maalin walba mataqaana drug cartelku ay bangiyadeenii meel walba ay u isticmaalaan inay dhacayso waa wax laga mataqaana aan meesha laga saari karin way marka su'aasha aad weydiisay feernimada inay ay loo adeegsado mataqaana hal dhacdo ama laba dhacdo runtii feer ma ah bangiyaduna mataqaana waa kanaan ku leeyahay waxa weeye arrimaha Soomaaliya oo kale markay la arko ama xawaaladaha ay la shaqeynayaan waa arrin ay kala shaqeyn karaan xawaaladu aniga waxaan ogahay dhowr jeer oo ma aragtay shirar runtii aad u wanaagsan ay soo qaban qaabiyeen baa jira oo ma aragtay arrintan kaga doodayeen kaga hadlayeen su'aalihiina waxay ahaayeen ugu badan waxa weeye bangiyadii maxaan qaban karaa oo sahli kara inaan idinkii mataqaana sharcigii la waafajiyo dadkii iyo adeegii aan bixinayn inaan u bixino ummadii mataqaana cid kale haysan waan runtii arrin ma aragtay aad fair oo ah haddii ay bangiyadii system ay la shaqeeyaan xawaaladii oo ay yiraahdaan dhageysta sharci ahaan waxa weeye aad buu adag yahay idinka iyo annaga iyo cid walba dhibaato u keeni kartaa balse maadaama Soomaali ahaan qaab kale oo lagu geeyaysan jirin sideeba ugu safesan oo ay lagu xallin karaa in mataqaana dadkina lacagaha ay gaaraan dad yoogan kale mataqaana aan loogu talagelin aysan lacagtii ugu dhaadhicin oo kale marka hal iyo laba hadii loo adeegsado mar walba dhibaato keenaysa balse dhinaca kale sharciga baan ahay waxaan eegnaa markuu qofku client-ga ku yimaado tusaale ahaan oo kale soo qaad qofba wuxuu ku leeyahay client A ba wuxuu ku leeyahay nin baan soo dagaalay maanta markuu qofka isaga client-ga information-kiisa ii sheego oo yiraahdo Cabdinaasir ninkaas aan dagaalay arrintaas aan oo kala dhacday dhibaatadaas aan kala gaadhay qofka warbixintiisa aan ka qaadayaa balse haddana waxaan waa inaan dhinaca kale ogaado dhinaca kale la dagaalamay warbixintiisa waa inaan ogaado oo isageen aan waraysto qofkii kale xataa aan raadi ama investigation ku sameysay waxaan u dhacday dhinaca kale muxuu leeyahay taasoo u sahlaysa qofkii lawyerka maxkamadda hadhow tolo marka aad tagto inaad ogaato dhinaca kale qofka kale weaknesskiisa iyo strengthkiisa inaad ogaato iyo arrintan mataqaana qofkaad hadduu intaad maanta ku yiraahdo aniga gacantii ku horeeyay ama ninka kale ay iga horeeyay maxkamadda marka aad tagto waxa imanaysa mataqaana inaad warbixin aan dhameystiran meeshan aad tagto mar walba waa sidoo kale xawaaladu markay ii yimaadaan anigoo lawyer ay yiraahdaan mataqaana niyo arrintaas aan haysato waxaan u baahanahay inaan ogaado concerniga iyo dhibaatada mataqaana dhinaca kale ay sheeganayaan waa inaan ogaano way on fiirno raan iyagu laftoodii maxay tahay waxyaabaha ay sheegayaan maxaa macquul ah maxaan macquul ahayn seesa loo address gareyn kara iyagu laftoodii waxyaabaha ay sheeganayaan oo kale markaan hadda wax yar ku soo qaato shirarkii hadda mataqaana arrinta hadda gabdhaha soo hadal qaaday oo kale marka labadii gabdhood la yiraahdo lagu xukumay aan ognahay dhowr week ka hor bay ahayd inay ay lacag ay dadkii ka urureen ama lacag halkan laga qaaday ay u direen dad kale si dadban xawaaladii laftooda dhinac bay mataqaana uga hadlayaan sababtoo dadkaas iyada haday gabdhahan oo kale dacwadu waxay ku saabsanayd gabdho gaarsiiyay lacag
dad ma aragtay argagixisoo kale ah soo ma ahayn laakiin marka su-aasha la fiiriyo xaggay lacagihii mariyeen ama xawaalad bay mariyeen baa su-aasha soo galaysa somaad garan markaasoo kale xitaa xawaalidu ama looyaradooda uma ihi anigu hadda looyar mataqaana xawaalidu mi laakiin arrinta ay sameynayaan kooskooda ama mid aan taageersanahay ah sababtoo mataqaana maadaama ay kaalin muhiima u hayaan ummadda mataqaana community-gana ka tirsanah balse markuu hadda aad xawaalado kala tahay laakiin waa macnaha su-aashii hore aan ku weydiiyay usoo noqonayna macnaha any system macnaha system 100% safe noqon kara exactly لكن أما لو قفا استعمال ده قفا استعمال أفر قفا استعمال still أنت معناها instead of individual كاس وحسوبي أنت لا حساب تعمل هاي ولا في عين سما system كردن إلا بانش كله absolute وأنا سؤال ماشي كنت أجانا متقنا كوسا صعد مركب وحوي ما دام system كي أو efficient بقول كي بقول هدي أي دعديني قف يلا بقى يسخل دنو استعمالان waxay ahayd in la address gareeyo both bangiyada iyo xawaaladii intii laga wada fadhiisto ay fursad siiyaan xataa bangiyada xawaaladii oo yiraahdaan ma taqaan arrimahan oo kale sideen uga hortagi karaa oo la address gareeyo si marka ma taqaan inta yarka gaabka imanay loo xalin lahaa wad fahmaysaa soo marka taas waxay sahlaysaa in systemkii uu shaqeeyo ummadii u baahnayd lacagihii la gaarsiiyo dadkii ma taqaana systemkan halkan businesskoodina uga socdo ma taqaana dadka ay gaarsiiyaan oo kale dadka u baahnaa laakiin markaan eegno sharci ahaan aan ka eegayo kale arrinta gabdhaha ku saabsan oo kale markii la yiraahdo halkan ay lacag ka diraan oo qof bay gaarsiiyeen dhinac kale waxay kaleeyeen ma taqaana oh by the way waxaad isticmaasheen waxa way waa xawaalada bay isticmaalaan lama laha bangi kale isticmaalaan meel kale mareen lama laha marka xawaaladu laftooda ma taqaana arrintaas oo kale proactive ka ahaadaan waxa way ay qaladkaas ay xabadka ama labada ee dhacaya inay laftoodii ay ogaadaan horta ilaa goormaan ogaanay gabdhahaas oo kale hadda beritoole haddii ay dhacdo in qof ay dawladdu soo aadayso ay ku soo ogto la yiraahdo qofka isaga ah oo Mr X la yiraahdo ayaa wuxuu way oo argagixisa lacag gaadhsiiyay haddii la yiraahdo waa inay xawaaladii ma taqaan arrimahaas oo laftooda soo ka hortagaan both sharci ahaan and legally iyo ma taqaan xataa public relation ahaan oo kale ay address gareeyaan oo kale sababtoo system walba bangigu mar walba waxaa dhacdo in ma taqaan si khaldan loo isticmaalo maalin walba ay dhacdaa ma taqaan meeshan la joogo ama qof fraud ahaan ha u isticmaalo ama ma taqaan qoliyo drug cartel ama arta lacagahoodii si kala dan ha garsan marar badan khaladaad way dhacayaan mar walba system ma taqaan 100% airtight oo ma arta aysan wax qalad ka dhacaynin ma jiraan laakiin haddana waxa taagan laftooda waa inay diyaar ahaadaan oo ay looyaro la shaqeeyaan oo ay ma taqaan maxaan ku iraahdaa iyaga laftooda accountanadii kulli la ogaado waxan oo kale maalinka hadda gabdhahaas oo kale dacwadooda lagu oogayay waan anigoo lawyer waan dareemi karay inay ma taqaana ay arrintaas oo kale ay dhinac saameyn ku keeni karto shir ballaaran oo runtii aad u wanaagsan xawaaladu waxa jira ay qaban qaabiyaan oo kale ka wadanay lawyer bangiyada ka socday oo meesha ma aragtay shirka ka soo qayb galay intaan xataa shirka bilaabin ka hor conversation ma taqaana sheekada yar ugu horeysay waxyaabo soo qaaday taas oo kale ka mid ah anigu waan soo qaaday waan ma taqaana arrimahaas oo kale way saameyn karaan inay ma taqaana ay bangiyada oo kale maadaama ay leeyihiin ma aragtay kolka horeba ay bangiyada kale oo soo xiran halkii bangiga taagnaa kaliya markuu arka arrintan ku oranay oo high risk ba aniga ugu tahay laftayda ama high risk bay tahay oo qofka oran kara laakiin waxa waa in arrintaas oo kale laga sii hortago hadda laakiin Cabdinaasir waxa isla bangigi waxay sheegeen oo soo cadeeyeen in gabdhahaas markay soo baareen gabdhahaas lacagta ay direen inaan kooda la marsiin exactly that means waxa waaye whoever lacagtaas diray xawaaladaha Minnesota muusan isticmaalin exactly wa arrinta aan point aad u wanaagsan oo runtii waxyaabahaas dhan baa u baahan in la baaro la soo bandhigo oo lagala wadaago hay'adihii ma taqaanay wardoonka hay'adaha ma taqaanay arrintan ku taxalluqa ee ma aragtay kulli dawladda waa inay kulli ogaadaan laakiin haddaadan soo saarin fiiri marka hadda la yiraahdo lacag noocaas ama dacwad maanta ka dhacday magaalada Minneapolis ayaa lacago dad argagixisa gaadheen marka la yiraahdo maxaa soo baxaya in ma taqaanay xawaaladu isticmaalaan waxba laga yaabo inaan xawaalad bal isticmaalin ba suuragal Soomaalida garan laakiin waa inay diyaar ahaadaan xawaaladii laftooda iyo dadkii ma taqaana community-ga gaar ahaan guud ahaan in ma taqaana meesha la taagnaado oo arrinta iyada la address gareeyo oo la yiraahdo meesha ay mareen xataa halkan ma aha koow laba ma taqaana hadday dhacdo xataa lafteeda ma taqaana siyaabo lagu address gareyn lahaay oo kale kulli waa in laga hadlaa oo ay public relation ahaan ma taqaana ay noqoto mid clear haddii kale waxa weeye warbixintii aan la ogeyn ayaa bangiyadu laftoodii ay ma taqaana ay cudur ka qaadaan bangiyo badan runtii waan ogahay Franklin oo kale waa bangi aad u wanaagsan community-gan runtii shirarkaas aan ka wada qayb galay amount iyo ma aragtay wanaag badan bay u hayaan community badan oo community ka tirsan ba aad u isticmaal oo bangiyo kale isticmaal bangiga isticmaal sababtuna waxa weeye waxay og yihiin
inay dadkooda qof walba dadkii familiga ah ee Soomaaliya joogay ama abaarihi joogay xilli ay u baahnaan ay garab istaageen Franklin Bank bay ogaayeen marka arrintaas mar walba muhiim inay mataqaanaa risk kaliya aysan eegin ay specifically u eegaan arrimaha Soomaaliya waxa kale oo imanay laftooda dawladda lafteeda maadaama sharciyadahan adag oo kale bari dhaweyd waxaan ognahay Obama administration mataqaanaa runtii markii ay abaari hadda aadka u jireen inay ka sameeyaan exception oo leeyahay mataqaanaa hadii xataa dadka waxyaabaha la gaarsiinayay ay ku dhacdo oo kale sababtoo hay'adihi oo dhan baa ka qayli waiver in loo sameeyo sababtoo si ay ku gaarsiiyaan de sharciyada marka la arko waxa weey qof walba oo dan ugu talagalay xataa haday gacantooda ku dhacdo waxa imanaysa in adiga ciqaab ay ku timaado marka inay waiver laga sameeyo waiver kana waxa lagu sameyn karaa in aan dadaalo badan bay runtii aan la socda xawaalada ay sameeyaan in la xiriiro ma arti senatoradi state keena laga dooranayo xoog badan bay mataqaanaa community ku leedahay governorka kulli dhaqaaqyayo badan bay mataqaanaa sameeyaan loola socda in marka dhinacaana sharci ahaan laga bush gareeyo dhinac mataqaanaa bangiyada laga bush gareeyo in guud ahaan ay tahay mataqaanaa hawl wanaagsan hawl ma aragtay lagu wada xiran yahay kulli guud ahaan oo kale cabdinaas waxaa maasanta su'aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye maadaama go'aanka company-gan uu qaatay ay saameyn laga yaabo inay ku yeeshaan dad badan oo Soomaali ah oo Soomaali joogo oo lacagtan ku nool ma la dacweyn karaa company-gan go'aanka uu qaatay awgiis maadaama sharci qaanta طبعا taa waxay u baahan tahay si specifically in loo eego muhiimadiisu hadda uma arka inay tahay dacwad iyo dacwad la'aan sababtoo bankigan waxaan ognahay inuu bankiga kaliya runtii ilaa hadda iskuna dayay waliba warbixintaas ay ugu soo gaadhayso isku dayaysay mataqaanaa xal ugu heli lahaayeen siday ku socon lahayd service-ka ay u hayeen xawaaladaha kale inuu ku socon lahaa inay dadaal laftooda wadaan marka aysan noqonin kow maxaan ku iraahdaa inaysan noqoninba waa la dacweynayaa balse waxaan u arkaa more oo inay sidii loo wada shaqayn lahaa iyagana riskigan ay sheegayaan meesha inuusan bay jirinba marka dhinac laga eego riskiga soo jiro iyo xawaaladu runtii hawsha ay qabaan si fiican u fahmaan bay u baahan yihiin not only bankigan iyo bangiyada kaleba sababtoo waxa ugu maqaalaa in ay jiraan hay'ado kale oo money transmitter ay kamid yihiin mataqaanaa money gram oo kale Western Union oo kale oo ay mataqaanaa iyagu laftooda ilaa hadda intaan oganahay wax sida maalinka dhaweytana mataqaanaa xataa shirkii xawaaladu ay qabteen laga sheegay wax saameyna ama ma aragtay iyagu gaar ah dhinacaas ay ka yimid xataa laftooda ma jiraan marka runtii lawyer ahaan oo kale waxa ugu fiicnaan lahayd inaad mataqaanaa picture-ka guud oo dhan aad hesho si aad mataqaanaa uga bixiso jawaab waafi ah su'aasha qaba Cabdinaasir waxay tahay aan soo noqon arrintaas maadaama oo arrinta heerkaas ay marayso oo lacagta laga diro state-kan waxa lagu qiyaasay sanadkii 120 milyan xawaaladaha waxay subsadeen association ilaa hadda ma qabaan lawyer matalay arrintaas macnaha wax yaab la Soomaa runtii marka aan community ahaan oo kale waa wax aynu ka midaysanahay wanaaga ay xawaaladuhu mataqaana ama roolka ay ciyaarayaan inay ma aragtay lacagaha dad u baahan ay gaarsiiyaan oo waxaynu ka midaysanahay waa wax aynu taageersanayn oo for granted u qaadanay muddo badan inay aad $100 halkan gaarsiiso berito la soo bixi aabaha uu ka qaato ma aragtay Muqdisho ka qaato ama uu meel kale oo mataqaana Soomaaliya ka mid ah ka qaato for granted ma qaadan hadda waynu dareemaynaa saameynta iyo dhibaatada ay leedahay marka xawaaladihii waa business yar yar ay ahaayeen lacagaha ay ka sameynayaan waxay ugu maqaalaa mataqaanaa shirarkii intaan ogahay inay runtii ay wax aan macno lahayn ay ka helayaan sababtoo ay adeegooda u badan oo mataqaanaa iyagu laftooda humanitarian ka qayb qaadanayaan sidii maqaalaha igu ahayd oo ay leeyihiin mataqaanaa qofkii lacagiisa lagu gaarsiiyo lacag yar una ay tahay mataqaanaa meeshii waxay laftooda ka helayaan hase ahaatee institution-kan waxay u baahan yihiin iyaga laftooda waa kan aan ku leeyahay both not only inaad lawyer u baahan tahay public relation aad u baahan tahay waxyaabo badan oo mataqaanaa association-kaas ay inay sameeyaan ay isku hareereeyaan qof walba xirfadiisa mataqaanaa laga faa'iideysto qofkii dhakhtar la yiraahdo mataqaanaa dhakhtarnimadiisa laga faa'iideysto qofkii lawyernimadiisa laga faa'iideysto markaas ay inay noqoto arrintan iyadoona ahayn business ahaantooda aan ahayn laakiin adeeg ay noo hayeen ay u hayaan ummadda
iyadoo la eegayo inay mataqaanaa kulli lagu garab istaago bal sidii mataqaanaa xal aad runtii muddo dheer qaadan kara oo wanaa ma aragtay fiican looga gaari lahaa sida arrintan ku xalis maray waa qof walba muhiim noo Cabdi Naasir maxaa hadda xal u aragtaa adiga haddii advice aad siin lahayd oo kale maxaa xal u aragtaa in la suubiyo well waxaan u baahanahay mataqaanaa qofka intaadan advice siin horta inaad warbixinta oo dhan runtii hesho dhibka ma aragtay looyaraduna kaasaa mar walba jira waa kan kulahayoo kale markuu hadda qofka xataa ii yimaado yidhaahdo niyo arrintan ay haysato waxaan u baahanahay in laftooda dhinacyada kale aan laftooda ogaado si aad u gaadho ma aragtay jawaab waafi ah qofka lawyerka wax ugu xun waxaa waaye oo marka intaad maxkamad istaagto hal dhinac kaliya doodiisa aad la soo istaagto lagu yidhaahdo niyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 eegin baa jiro mataqaanaa kugu ma aragtay dhinacan kale taagan marka runtii waxaa weeye waa talada ugu muhiimsan waxaa weeye bal inaynu community ahaan oo kale qofkeena aqoon-yahanka qofkeena sheekha qofkeena mataqaanaa yar iyo weyn rag iyo dumar inay bal mataqaanaa arrintan taageero gaara loo sameeyo laga wada fadhiisto la iskaashado laga wada hadlaa runtii muhiim sidii mataqaanaa xal runtii permanent loo gaari lahaa arrintan sababtoo waxaan ognahay haddii beritoole la yidhaahdo haddana qofka mataqaanaa halkan lacag ka diray oo qof gaadhsiiyey mar walbana way dhacaysaa qof mataqaanaa si khaldan isticmaal 99% haddii dad baahan loo gaadhsiiyo dad inay laftooda ka faa'iideysan karaan systemkan oo kale marka beritoole hadduu haddana qofka la yidhaahdo ma aragtay maxkamadaha meeshan oo kale ama ay dacwad lagu abuuro kale inay haddana saamayntu mar walba ay soconaysaa marka inay si guud oo kale waiverka laga wada hadlo sidii loogu samayn lahaa institutionadan oo kale xawaaladaha Soomaaliya gaadhsiinaya lacagaha oo kale runtii arrintan waa arrin aad muhiim ah inay ma aragtay discussion balaaran laga sameeyana dadaalkoodan runtii mataqaanaa dadaal badan bay sameynayaan laakiin in la mataqaanaa xataa ay isticmaalaan aqoon-yahan walba cid walba loo yarray jiraan cid walba la isticmaalaan waa muhiim weyn waa mahadsantahay Cabdi Naasir aad baad mahadsantahay sidoo kale